بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع دمان ولا الله إنسان ملك السجوكتان وبرنامج ده محيطه وأنا قصدت محمد سبحانه الله الله يطيب ميديا جروب ورباهين وتأديج بالشدة الصوماليات ملك السجوكان حق سياسات حق دقالة وعيقلين بالشدة يكب عند أمضينا الصوماليات ملك السجوكان. موضوع عنوانته حوالين الإسلام منهج الحياة. إسلامك ومنهج دمشترا oo nolosha bani aadanka fuulka ah oo dhinac walba buuxinaya diinteena islaamka Allah subhanahu wa ta'ala ku soo dajiyay maxay ahayd si kaamil u soo dajiyay oo dhinac walba taabanaysa xaq siyaasadeed xaq diineed xaq bulsho iyo xaq maxay ahayd maamulba maxay tahay diin dhameystiran oo Allah ku qatimay diimihii samaawiga ah ee imaan jiray. marka islaamku wuxuu kaga duwaya diimihii hore waxaa laga yaabaa nabiyadii horeenta iyo nabigeena markii la isku fiiriyo nabiyadii hore halka cidooda bas loo diri jiray nabi kasta qoomkiisa loo diri jiray nabi kasta qoomkiisa loo diri laakiin diinteena waxaa laga dhigay diin shaamil ah oo ummadaha dhan maxay ahayd wada hoos imaanayaan oo wada rasuulkeena waxaa laga dhigay rasuul caalami ah wama arsalnaaka ilaa rahmatan lil caalamiin naxariis aan ummadaha dhan ah ugu soo dirnay. marka islaamku markuu soo baxay marka ummadihii adduunka say ahayn tafaraaruq weyn ka jiray laba dawlad waaweyn adduunka talinaysa marka Furus iyo Rum kala dhihi jiray labadooda dawladihii duqoobay kala daalaysa isku leynayeen isu boobayeen quraankan uu sheegay alif lam mim ghulibat rum umar boqol la jibinay carabta markuu islaamku soo dhex baxay siday ahaayeen dad nolosha ka dhacsanay ahaayeen dayrul saynta dambe ummadaha ka joogeen laakiin dad jasiira carabiga iska degan oo ciiso oo axraar iska ahaayeen laakiin manhajkooda wuu bedel islaamka dhan wuu bedelay. marka islaamku ku soo bilaabanayo si hoos oo tartiib ku soo bilowday wuxuu ka soo bilowday jasiirada carbeed qoomiyada carbeed ka soo bilowday qoyska quraysh nabiga ka soo jeeday kaleey salaam ka dhashay. marka soo u bedelay noloshii carabta soo u bedelay dhan kasto ka bedelay marka xagu ka bedelay xaq bulsho ka bedelay waxay ahayd dad isdagaalo dad iscuna qabiil u kala baxsan tafraar weyn u ka dhex jiro isbooba isdhaco wixii dhan islaamku wuu xaliyay wuxuu ka dhigay dad walaalo ah. markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam madiina soo galay 13 sano ma ka fadhiyo islaamku uu dacwo ku faafayay markuu madiina soo galay laba qoys deganeed oo si qasraj way iscunayeen 120 sano iyo jaft isku hayeen yahuud baa la deganada isku direysay labada qoys uu islaaxiyay ansaar oo loo bixiyay halka marka heshiis u dhex dhigay bulsho heshiis society u dhex dhigay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo labada qoys inay iscafiyaan oo diin maxay heeto ee hal qoys walaalo laga wada dhigay. marka taas marka islaamku inuu yahay mid bulshada walaaleyna innamal mu'minuuna ikhwa mu'miniin dadka walaalo waa walaalo islaamku dadku walaal xaq oo diimada ku walaaliyay xaq qabiilka ma walaalin marka qabiilkii meesha laga saaray qabiilkii mid maanta ugu daran ee anaga haysato ah in dadka walaalo bas ay ku yihiin qabiilka bas haduu qof gacan qabanayo qof cidiisa u gacan qabanayo haduu qof shaqaalaysiina qof cidiisa u shaqaalay dadka kale inta uga tagta marka innamal mu'minuuna ikhwa al-muslim akhu al-muslim المسلمون في مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد sida isuguna xariisanaya hal jasad oo kaleento. marka taasna anaga maxay qabaliyada inta ka guurna oo guurna islaamka sidoo wax u walaaleeyay oo ah maxay qabaa'ilada islaynaya carabta u maxay ku ka dhigay dad walaalo ah oo Soomaali meesha joogto ay walaaloodo qabiilkan uu meesha ka baxo iqtisaadiyan marka xaq bulsho ku walaaleeyay oo laga dhigay dad walaalo ah khilaafkii meesha laga saaray haddana waxyaabihii maxay ahayd isku khilaafi lahaa iyo islaamka u maareen u sameeyay xaq dhaqaalaha islaamku u maareeyay dadkii maxay ahayd waxa laga dhigay aqniyo iyo fuqara iyo kala yihiin in ladan iyo inaan ladan marka waxa la sameeyay zako waxa Allah subhanahu wa ta'ala wa'lam anna Allah tarada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim laga qaaday dadkooda ladan la siinayo dadkooda fuqarada taasna maxaa waay marka kalaasnimada kala socnaanta ila kala sareeyo in islaamku u baabiyo oo dad siman oo xaqi salaada lagu sameeyay cibaadada lagu sameeyay xaqi soonka lagu sameeyay xaqi xajka lagu sameeyay xaqi maxay ahayd dhinac marka taasa keenta marka in kan ladan wax laga qaado kii faqiirka ahaana wax la siiyo marka taasna walaaltinimo iyo islaamka dhig oo isku soo dhawo dadkii isku soo dhaweynayso marka uu noqday marka xaq diineed isku mid annaasu sawaasiyatun ka ansanaan al-mashti la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa dadku waxay u sameeyeen sida shallada u sameeyeen qof ka fadli badan carabta waxay soo arkeen inay dadka sareeyaan ummadaha kale tan carabta way yeesi jireen hoos u fiirin jireen because dawlad ma aysan lahayn oo dad waxay ahaayeen dad la gumeystay ahaayeen oo qaarna dawlad farisiya hoos jooga Persianka hoos jooga qaarna dawlad Romaaniya hoos jooga marka ummadihii kalena carabta way yeesayeen carabtana ummadaha kale way yeesayeen ajim ay isku arkeen inay ka sareeyaan taa waa la baabiyay oo islaamku wuxuu ka dhigay dad siman taas ilaa ay ka imaanaysan ummadda muslimka maanta dhibaatada laga baxaayo ilaa qof walba 4.5 waxyaabo gumaysi uu ka tagay kala socnaan hadee taas intay taagan tahay meel ma gaarayno
inuu laqada manhajka islaamka ah in dadka siman yihiin oo qofna qofka kale ka sareynin ilaa alla ka cabsi uu ku simay iyo qof walba meesha munaasibku ku yahay الشخص المناسب في المكان المناسب qof walba meel buu ku fara dhuubay meeshiisa loo daayo oo marka halka waxaa ka baxaysa marka in dadka ay la kala sarmana sidoo kale islaamku wuxuu ka sii cadaaladda إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلهي وحو أمره خطبة كستوى الأقرياء عمر بن عبد العزيز بلا marka إلهي وحو أمره بالعدل إن ليسو عدالة سمي عدالة qoyskaada cadaalada dariskaada cadaalada maxay ahayd ilmahaada cadaalada maxay ahayd haweenkaada cadaalada maxay ahayd siyaasada kuraasta sida loo kala qaadanayo kulli cadaalada dhaqaalaha sida loo kala qaybsanayo kulli diin ku dhisan cadaalad oo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala markasta cadaalad uu jecel yahay wax kasta cadaalad ku dhisanna ay toosayso wax kasta cadaalad daro ku dhisanna aysan maxay ahayd aysan toosayna qaloocanayso oo fashil ku dhamaanayso taasina islaamku marka waxyaabaha uu la imaado waaye uu ka bedelay sidoo kale islaamku wuxuu ka imaaday diimihii kale oo dhan maxay ahayd wuxuu ka dhigay diinta islaamka al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina إلهي وحود إن كان نعمة إذا كنا ما يشترن دينتنا sidoo kale inta islaamku wuxuu ah manhaj dastuurka islaamka siyaasiyan rasuulka sallallahu alayhi wasallam qabaa'ilada markuu mideeyay hadana dadkii soo hijrooday ayuu isu keenay markaasuu mideeyay wuxuu sameeyay wasiiqo heshiis u dhaxdhigay uu kala habeeyay intaas oo dhan manhaj siyaasadeed islaamka diin wa dawla islaamku waa diin iyo dawladnimo wada socoto wada socoto sidoo kale islaamku wuxuu wax ka bedelay nadaratul islam lil mar'a gabadha maxay ahayd iyo siday ahayd ummadaha kale siday ku ahayd iyo sidii carabta wax ku ahayd ayada waxyaabaha islaamku la imaado guusha islaamka la imaado islaam oo kow ayadii u horay soo degay in la xarimay gabadha in la dilo carabta qaar qabaa'ilo kamid ah way dili jireen ayadana la duugi jiray waxay soo kordhinaysa malahan maxay ahayd hala duugo dagaalka kuma raaci karto dhaqaale kuma soo saari karto marka qabaa'ilada qaar gabadha markay dhalatay gabadha ururta waa la dili jiray quraankan uu sheegay weydal ma uudatu su'ilat maxay loo dilay bi ay dhanbin qutilat maxaa loo dil markaas ilaahay hadana wala taqtulu awlaadakum ilmiina hadilina qashata imlaaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ayadaka nahnu narzuquhum wa iyyakum anaga risqooda siinayna idin soo dhiibana hadilina ilmiina idan islaamku wuxuu diinta koowaad ee dumarka xuquuq siisay hadaa ma xuquuqul mar'a islaamku xuquuqda ka baqan diin aan islaam ahayn oo gabar xuquuq siisa ma jirto ummadaha kale maanta dhibaatada gabdhaha haysato ee dayaca ku dhacay ee xuquuq la'aanta ku dhacday iyo guryaha markii laga soo saaray sida u jabeen ummadda muslimka u jabtay markii xagga haweenka laga soo daro idan diina islaam ahayn oo gabar qiimo u yeeshay ma jirto taa garta gabdhow kaa garta xagga islaam wuxuu amray inay gurigeeda joogto inay ilmaheeda korsato in nafaqadeedii nolosheeda uu ninkeeda ilaah u saaray inay maxay tahay ay wax barato u fasax inay shaqayso shariicada u fasaxday inay bulshada wax tarto macluumaad noqoto waxyaabo fara badan oo shariicada ay siisay oo gabdhaha khaas uga dhigta fasiirada uga dhigta jirto oo waxyaabo ragga la siiyo waxyaabo marka xuquuqda gabdhaha adaa maqasho waa xuquuqda islaamka uu gabdhaha u siiyay diina islaam ahayn oo xuquuq islaamka siisa ma jirto cilmiga islaamka shariicada afar meelood oo meel gabar baana soo gaarsiisay afar meelood oo meel umuna Aisha radiyallahu anha qofkii u hore islaamka soo galay Aisha ahayd radiyallahu anha suurad kaamil Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu magac daray nisaa haweenka ugu magac daray maxay ahayd suurad kaamil Ilaahay subhanahu wa ta'ala gabar magaceed loogu daray Maryam marka xuquuqda ugu weyn ee dumar islaam diin ay siisay waa diinteena islaamka xagga qoyska maxay ahayd kala dambeyn asagii aaba laga dhigay ayadii hooya laga dhigay ilmi xuquuq mushtaraka nafaqadi kulli shay marka islaamku wuxuu waxyaabaha u leeyahay waxa waaye inuu badbaadiyay dumarka badbaadiyay uu ka dhigay dad qiimo leh uu ka dhigay dad xuquuq leh uu ka dhigay marka taariikhda 22 aayadood suuradood ku dhawaad 22 dumar ku dhawaad ya Allah subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku sheegay oo xaalado kala duwan ah maxaa kamid ah Maryamo oo maxay ahayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nabi ka abuuray aabaan ay dhashay ayada maxay ahayd waa gabadha u sheegitaanka badan quraanka lagu sheegay Aasiya oo nin boqor oo dictator uu qabay oo Ilaahay uu ka badbaadiyay laba maxay ahayd Aisha oo lagu been abuurto oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo sabca samaawad ka soo dahiray oo maxay ahayd inay zina gasho lagu iftira ishaaca lagu sameeyo propaganda lagu sameeyo waxa ahkaamti guurka ahkaamti dalaaqa kullu quraanka uu lagu sheegay waxa quraanka sheegay gabar maxay ahayd markay ninkeeda u dhintay qoyskii ay rabeen dhaxalka inay adeerkiin uu hantida dhanka qaato Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayadii dhaxalka sababteeda ugu soo dejiyay suuratu nisaa yaa loogu magac daray oo marka loo sheegay xataa markii ninka uu ka geeriyoodo in dhaqaalihiisa xuquuq ay ku leedahay ilmaheeda nafaqo ku leeyihiin dhaxal ku leeyihiin ayada xuquuq la siiyay markay hal yihiin markay hal afar yihiin markay inta yihiin marka diin islaam ahayn oo gabar dhaxal iyo dhaqaale siisa ma jirto oo diinta islaamka ku horeysa ka hor hadii ninka uu dhinto waxa hantid cid qaadan jirtay
ayadii ilmaheedana markaa halkaasi ku dayacman jireen la islaamku waa jooji taas marka waxaa laga dhigay dad xuquuq lahaa laga dhigay xataa hadduu ninkii ka geeriyoodo inta ninka laga guursanayso xuquuqa la siiyay dhaxalaa la siiyay sidaas u dayacmanin kuwa kale haddana guursan kartaa marka sidoo kale haddii xataa la furo oo ninkii kala tagaan haday ninkii kala tagaan xataa nafsa shay dhaqaale haddana inaysan dayacmanin oo ninkii maxay tahay hanti ay ku leedahay oo maxay tahay xuquuq nafaqo ilmaheeda intay ciidada ku jirto nafaqa la siiyay suuratu dalaaq marka qaabkii wax loo furaay iyo ciidadii iyo maxay ahayd intay jaanis ninka la ka guursanayso shareecada asaga la saaray marka nafaqadii 3 bilood ciidada ahayd ninka la saaray markay kala tagayaan markaas ilaahay dan wuxuu dhahay wa in yatafarraqa yughni Allahu kullu min sa'ati haday kala tagaan qof walba wahiis ilaaha daboolay idan shuf islaamku soo gabdhaha u karaamay ayadoo laga dhintay ayadoo la furay ayadoo la qabo intaba xuquuq ay leedahay oo shareecada ay siisay marka taasna waa inaad gaataan qoonda dumar ee hadda markaas fahantaan qoondada dumarka shareecada ku jirtaa xuquuqda aad leedahay iyo sadka aad leedahay shareecada wax ka weyn ma helaysid meel kale oo kasoo helaysidna ma jirto meel kale idan marka diinteeda islaamka waa mutakaamil waxay u baahan tahay in la barto siyaasiyan in loo barto diiniyan in loo barto ijtimaaciyan xag bulsho in loo barto xag dhaqaale in loo barto xag dastuur in loo barto kula shay marka ummadaha kale intoo dhan dastuurka intay ka qaateen quraanka kariimka ka qaateen anaga laakiin wax ma aqrinin ummatu la taqra aan noqon ayadii horeys quraanka waxay iqra wax aqri laakiin hadana wax aqrin dadka kale aqrina waa laga faa'iideysana marka islaam diin mutakaamil manhaj mutakaamil يصلح في كل زمان ومكان meel kasto ku hagaagay meel kasto ku soconay bulsho kasto ku dhameystiraya waxaana dayrin kuugu filmaanta sida ummadaha adduunka maanta diimaha kale inta haystay sida xawliga uu ku socdo diin yamshi ala alfidra xawliga uu ku socdo bari iyo galbeed uu faafayo oo ummadii kale diimahooda ay waxay haystay u soo tagayaan ay u soo galayaan diinta islaamka aan noqon kuwa diintooda barto aan noqon kuwa diintooda ku dhaqmo aan noqon kuwa islaamka si daqiiq oo saxiix u fahansan ala manhaj sahaba ridwanullahi alayhi al manhaj rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi alkiram sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.